بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. المدحوينها دولة فدرالكا iyo ra'iisul wasaaraha dowladda federaalka madaxweynaha dowladda Puntland iyo madaxweynaha Jubaland Ahmed Islaan Hamdoobe iyo madaxweynaha Galmudug Abdikariim Hussein Guuleed iyo wasiirada iyo dhammaan marti sharafta iyo United Nationska iyo dadweynaha reer Jubaland iyo dadweynaha Soomaaliyeed dhammaantood assalaamu calaykum. marka ugu horeyso kulli maanta hadda meeshan hadal badan ma jiro, annaga waana soo daalnay waa run. madaxweynaha hadda la doortay waa u hambalyeynaa dadweynaha reer Jubaland, waa u hambalyeynaa sida wanaagsan ee madaxweynahoodii iyo isbedelkoodii iyo siyaasadooda ay u handalgareeyeen. madaxweynuhuna waa ku mahadsan yahay haddii iyadoo aan dhibaato dhicin wax kastoo la kala tabada buu dhameeyey isbedelkii runtii aad iyo aad aan ugu hambalyeynaa. waxa maanta loo yimid oo ugu horeeyana waa in la isu hambaliyeeyo kan kale ummadda Soomaaliyeed. waxaan u rajaynaynaa wanaag iyo dowladnimo iyo sharaf iyo dhibaatadii la soo maray in Ilaahay naga gudbiyo. midna waa codsanaynaa isreeriix Soomaalidu waxyaalo badan oo lagu soo arkay waana la soo riixay wax badan oo laga faa'iideeyay ma jirin inuu isreeriix yaraado, isla noolaasho iyo isla soo dhawaasho iyo walaalnimo iyo dowladnimada la helo. sidaas dadka oo dhan ay dan u tahay, dalka Soomaaliyeed iyo deriskeena iyo caalamka oo dhan ay dan u tahay si taas loo helo. haddii laakiin la isriixo anaga federalismka gobolada anaga aan ka soo jeedo meesha ugu badan oo federaalka laga jeclaabo oo federaalana la rabaa ayadoo kontonkii Soomaalidu kale inta diiday federaalku anagu federaalkan aaminsanayn haddana sidii aan u aaminsanahay, laakiin federaalkan aaminsanahay mid la isriixo